كسورة برنامج كعاوي عالمك قضبة وركة نجوا وإن وحاي كليه kadib guuldaradii cuslayd ee soo gaartay qorshihii ra'iisul wasaare Theresa May ee ka bixista Yurub xildhibaanada dalka Britain waxa ay ka doodayaan in heshiis la'aan laga baxo Yurub iyo in kale warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa qalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay hindisaha ka bixista midowga Yurub ee Britain warar kale caawana waxa kamid ah dalka Venezuela korontada iyo biyaha ayaa ka go'an iyadoo maxkamadda sarena laga dalbaday inay baaris ku sameyso hogaamiyaha mucaaradka ee lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo dalka Burkina Faso kumanaan qof ayaa guryahooda ka cararay kadib markii ay weeraro ku ekeeyeen kooxo xag jira korontada iyo Afrikana waxaanu eegi doonaa siyaabaha kala duwan ee tamar dhaxal gal ah looga dhalin karo qaaradda kala soco BBC News Somali Television raadiyaha online iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeenok daawadayaal waaniga maxamed cabdi xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe baarlamaanka dalkan UK ayaa ka doodaya codayn muhiim ah oo lagu go'aaminayo in dalkan uu isaga baxo midowga Yurub iyada oo aan wax heshiis ah la gaarin qalaasaha siyaasadeed ee Britain ayaa sii xoogaystay kadib markii ra'iisul wasaare Theresa May qorshaheedii ay ku doonaysay in looga baxo midowga Yurub ay si weyn u diideen markii labaad xubnaha baarlamaanka laakiin waxa wali maanta ay ku adkaysanaysaa in heshiiskeeda uu ahaa mid aad u wanaagsan waxaanay tiri waxaan rabaa in aan uga baxno midowga Yurub heshiis wanaagsan waxaana aaminsanahay in aan haysano heshiis wanaagsan heshiis la'aan waxa uu ka wanaagsan yahay heshiis xun laakiin heshiiskeedan oo guul daraystay waxa looga guuleystay 149 cad taas oo ay micnaheedu tahay in xildhibaanadu wajahayaan inay kala doortaan in midowga Yurub laga baxo heshiis la'aan iyo in kale haddii taa la ansixiyo UK waxa ay ka baxaysaa midowga Yurub 29ka bisha Maarso iyadoo aan waxba lagu heshiin laakiin waxa si weyn loo aaminsan yahay in heshiis la'aan in midowga Yurub laga baxo aan wanaagsaneyn taas oo macnaheedu ay tahay in haddana berri oo Khamiisa codayn kale la sameyn doono si loo go'aamiyo in UK ay ka dalbato midowga Yurub in dib loo dhigo qorshaha Brexit laakiin ma kala cadda sida ay midowga Yurub uga jawaabi doonaan ninka ugu sareeya wada xaajoodka xagga midowga Yurub Michael Perner oo arintaasi ka digayana waxa uu yiri halista buu yiri heshiis la'aan waxa ay noqon kartaa meeshii ugu xumeed ayay taagantahay ayuu yiri hadalkiisa isaga oo sii watana waxa uu yiri waxa aan soo jeedinayaa in aan la dhayalsan halista iyo cawaaqibka waliba ka iman kara haddaba waxa xarunta warqabadka ee BBC-da ku sugan Cabdixaafid Awal Ismaaciil oo arrimahan ka bixista Britain ee midowga Yurub si hoose ula socday Cabdixaafid waanu aragnaa in ay arrimaha siyaasadda dalkan qir taagan yihiin waa maxay waxa la isku haysto oo la isku mari laayahay maxamed aad ayaad u mahadsan tahay horta marka hore labadii sano iyo barkii la qaaday aftida khalkhal siyaasadeed iyo isdabad socod iyo isdaba wareeg ayaa ka dhacay dalkan Ingiriiska iyo Yuruba laba ayaynu haddaba u kala saaraynaa xisbiga talada haya laba arrin ayay diidan yihiin koox ilaa 200 oo xubnood waxa ay heshiiskan imika Theresa May ay haysta ay ku turjumayaan in aanay ahayn wixii dadku aftida ay ku dhiibteen koox kale waxa ay ku dhowdahay Mrs May qorshaheedana waa ka raali mucaaradka hadii aynu nimaadno in cilaaqaadka oo dhan aan la goyn Yurub ay rabaan sida in lagu sii jiro suuqa xorta ah oo aan ka bixin iyo xeerarka ay iskaga midka yihiin ee ay wadaagaan oo uu ka mid yahay sida xeerka shaqaaluhu marka heshiiskan imika yaala waxa uu u muuqdaa inay noqonayso in qaybna laga sii ahaado Yurub qaybna laga baxo takaleyaduna caqabada weyn ah waxa weeyaan maxamedow soohdinta waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda Ireland oo ah qodob aad la isku hayo وقرت عبد حافظ وحن أجنها إن شلي أي رئيس الوزراء هو دنينيس إن هشيس لوجا بحو يوروب ولا جديدة ما أنتوا حل جدوا إن هشيس الآن يوروب لوجا بحو هدي أي تاس نعضه ما حد عيه haddii ay noqoto in heshiis la'aan laga baxo 29ka bishan March waa in laga baxaa maxaa dhici kara in ay dalbato Mrs May
in waqtiga loo dheereeyo Yurub waxay waqtiga dheereyn kartaa ilaa iyo bisha May laakiin waa laga dayrinaya oo uma badna waxa ku soo food leh doorashooyin ayaa ku soo food leh marka maxaa dhici kara in doorasho degdeg ah ay dhacdo in Mrs May yada lafteed ay casisho waliba Maxamedow iyada oo lagu khasbayo oo aan yadu doonaynin iyo in la helo nidaam ay ka wada shaqeeyaan xisbiga talada haya iyo xisbiga mucaaradka ee Labourka ama shaqaalaha oo iyagu haysta xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka waa garta Cabdi Xaafid waxyaabaha kale ee miiska saaran ee la isku hayo ay sheegayaan dadka khubarada waxa weeyaan in mar kale la sameeyo afti taasi ma wax dhici kara ma tahay markaad inayso waxyaabaha ka soo baxaya wararka ugu dambeeyay maxamed way adag tahay in la maleeyo inay afti kale dhacdo hadiiba si ay dhacdo waa in la keenaa oo la cadeeyaa waxyaabo aan hore u ogeyn oo dadkii markii hore u codeeyay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub lagu qanciyo dadkaasi dabcan waxa ay ku doodi doonaan in aan dimuqraadiyadii aan iminka ka shaqaynaynin dalka Ingiriiska waayo markasta waxay ku adkeysanayaan waa in la ixtiraamo dadkii u codeeyay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub yaani tiro yarba ha ku badnaadaan laakiin taas waa mid ay adag tahay in laga gudbo hadii ay dhacdo mar kale waxa iyaduna ay noqon doontaa markii ugu horeysay Maxamed afti la qaaday oo loo codeeyay dib looga noqday waa gartay hadii aan u gudubno dhanka Yurub halkay ka taagan tahay arrimahan khallaasaha ee taagan Yurub waxa ay leedahay wax kasta oo aanu qaban karinay waanu qabanay halka kama gudbi karno Ingiriisku ha isku noqdo talo ay ku midaysan yihiin hala yimaadaan وقرت عبد الحافظ عاول إسماعيل آد إياد ومهسنتهاي كاسنا وحوها عبد الحافظ عاول إسماعيل أو جوجي حرنتا ورقبت BBC ذو إنه جوه رمي وحيابي وقدم بي كذا شيء خلاصها سياسة كذا شيء هندسه بريكزت بلا مركان هدي أنه إنه ورك على كجرا مانتا dhisme 3 dabaq ah oo dugsi hoose aha ayaa ku burburay aag ay dadku aad ugu badan yihiin magaalada Lagos ee caasimadda Nigeria sarkaal kuwa badbaadada ah ayaa BBC-da u sheegay in 8 arday ah ay ku dhinteen halkaas 40 la badbaadiyay ilaa hadda iskuulka oo ku yaala dabaqa sare ayaa waxa ku jiray in ka badan 100 arday ah waxaana laga cabsi qabaa in qaar badan ay ku go'doonsan yihiin hay-adda sharciyeysa duulimaadyada Mareykanka ayaa iska fogeysay go'aanka ay dalal badan ku gaareen inay dhulka dhigaan diyaaradda Boeing 737 Max kadib shilkii Ethiopian Airlines ee dhimashada badan sababay hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo FAA ayaa sheegtay in dib u eegis ay sameysay aanan ilaa iyo hadda aanay muujinayn in amarka diyaaraddan lagu joojiyay aanu wax sala lahayn dalka Suuriyana ciidamada Mareykanku taageero ee SDF magacooda loo soo gaabiyo ayaa sheegaya in ay sugayaan dagaalyahano kale oo doonaya inay isa soo dhiibaan ka hor inta aysan bilaabin weerar kama dambaysa oo ka dhan ah dagaalyahanada kooxda isku magacaawday dawladda Islaamka kooxdan ayaa magaalada Benghazi oo ahayd meelaha kooban ee ay wali ku harsan yihiin lagu hareeriyay tira kamid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ayaa maxkamad la soo taagay dalka Sacuudi Carabiya dacwad su'aalo ka keentay habka boqortooyada ula dhaqanto xuquuqda bini aadamka dadka la soo taagay waxa kamid ah Lujayn Al-Hathluli oo ku caanbaxday ololihii in dumarka Sacuudigu ay gawaarida kaxayaan waxa la xiray in ka yar ka hor inta aan Sacuudigu qaadin amarkii mamnuucay in dumarku ay gawaarida kaxayn karaan dalka Venezuela waxa ka taagan koronto iyo biyo la'aan iyada oo maxkamadda sare laga codsaday inay baaritaan ku sameeyaan madaxa mucaaradka inuu ku lug lahaa xaalad abuurkan la xiriira biyaha iyo korontada Cabdixaafid Caawil Ismaaciil ayaa eegaya markii hore korontadii ayaa gooday iminkana biyihii ayaa la la'yahay waana mid ka mid ah dalalka caalamka ugu khayraadka badan dadka reer Venezuela oo dhowr caanamaal korontadu ka maqnayd wali waxa ay la tacaalayaan biyo la'aan tan oo dadka dalka ugu faqiirsan ay ku kaliftay inay ka cabaan webiga wasakhaysan ee dhex mara magaalada Caracas xaaladdu inay cirka isku shareerto markaas waa caadi biyo ayaynu u baahanay waa muhiim bini'aadmi ayaynu nahay booyada ayay noo keeneen intaasi wax yar ayay naharaad tiraysaa markii ay ugu dambayntii booyadii timi saraakiishu waxa ay ku adkaysteen inay xaaladdu degan tahay
kacaanku ballantii uu qaaday dadka uu ka soo baxay mawduuca biyola'aanta waxaa keenay korontada maqan oo mucaaradku ay ka dambeeyaan. margarita iyo osmel way ka warqabaan xaaladda ka sii daraysa ee venezuela. barayaashan jaamacadda wax ka dhiga waxay ku kaliftay inay biyaha ka dhaansadaan seeraha el avila. gurigoodan yar meel kasta waxa yaalla weelka biyaha lagu dhaansado, dhibic kasta waa lama huraan, waana inay meel dhigtaan. qoyskan afarta ay dhowr maalmood dharkooda ma ay dhiqin. markaas xilliga yar ee ay biyuhu soo dhacaan waa inay ka faa'iidaystaan. qaatiyaan ayaan taaganahay, daal iyo cadho ayaa isugu kaybiiray. markii korontadii go'day khamiistii waan ka yaxyaxay. kuwani waa qoysaska ay saamaysay siyaasadda cakiran ee venezuela. badiba khayraadkii gaasta ee dalkani waxa uu raacay dhuumo musuq maasuq iyo tuugo ah, tan oo keentay inay dadka reer venezuela ay daawadaan adeegyadoodii aasaasiga ahaa oo sii baaba'aya. wagaag mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. fadlan raadi BBC News Somali, halkaas oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn. si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkana, nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. wali waxaa inoo soo socda oo aad qaybaha dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan waa korontada iyo Afrika. waxaanu eegi doonaa siyaabaha kala duwan ee tamarta dhaxalgal ama tamar dhaxalgal ah looga dhalin karo qaaradda. qadar yar oo nasashaha dabadeed. wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waanigo maxamed cabdi xaraare. balaadin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn. kadib guuldaradii cuslayd ee soo gaartay qorshihii ra'iisul wasaare Theresa May ee ka bixista Yurub, xildhibaanada dalkan Britain waxa ay ka doodayaan in heshiis la'aan laga baxo Yurubiyan kale. dalka Venezuela korontada iyo biyaha ayaa ka go'an, iyadoo maxkamadda sare laga dalbaday inay baaris ku samayso hogaamiyaha mucaaradka oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo. deegaanka saxaraha ee ka hooseeya saaxil, dadka 300 oo milyan gaaraya ee ku nool waxa ay guud ahaan muddo sanado ah la tacaalayeen ammaan darro. laakiin dalka Burkina Faso dhawaanahan mooyee horaantii wax dhibaatooyin ah oo waaweyn kama aanay jirin. 2017 ilaa 33 weerar ayaa la diiwaan geliyay dalkan. iminkana sanad gudihii kooxaha islaamiyiinta ah weeraradii ay ku soo qaadeen waxa ay kordheen in ka badan 4 laab. kumanaan qof ayaa ku barakacay dalka gudihiisa oo ka cabsanaya xataa in caruurteeda ay dugsiyada geeyaan. Soyba Badqas ayaa ka waramaysa. iskuul aanay caruur joogin, kuraasta iyo miisaska ayaa dhinac lagu raseeyay iyadoo aanan waxba lagu daboolin. laakiin waxa muuqda waa xusuus iyo bus. Samuel Sawadogo waa maamulaha. waxa uu ka walwal qabaa in maleeshiyaadku bartilmaameedsadaan iskuulka ayaga oo u malaynaya in uu reer galbeedka la jiro. dugsiyo badan ayaa la gubay, macallimiin ayaa la weeraray, qaarna waa la dilay. dhulkan fidsan ee xadka Maali iyo Niger ku yaal ayaa waxaa ka howlgala kooxo xiriir la leh Al-Qaacida iyo ururka dawladda Islaamka ee ku sugan dhulka ballaaran ee saxaraha. xeradan ku meel gaarka ah ayaa bil gudaheed waxa soo gaaray 2,000 oo qof. inta badan waa haween iyo caruur. ninkan oo raba in la qariyo ayaa sheegaya in dadka soo weeraray ay ahaayeen jaarkiisa, ayna doonayeen in ay la wareegaan dhulkiisa. waanu baxsannay sababtoo ah ilaa hadda dadkaasi waxa ay haystaan midiyo. hadda si aada ayay u hubaysan yihiin, ma garanayo halka ay ka heleen hubkaasi. dawladduna kooxaha islaamiyiinta isa soo taraya waxa ay rabaan in looga hortago qaab iskaashi goboleed ah, iyadoo laga jawaabayo nabadgelyo xumada isa soo taraysa iyo guud ahaan dawladda oo kaalinteedii gabtay. waa khasab inaad eegto Burkina xaalad ahaan. kooxaha Maali iyo Niger ayaa si iskood ah halkan u yimi. taasina waxa ay kor u qaadaysaa in dalalku ay si wada jir ah uga howlgalaan, laakiin ma diidaya inay kooxahaasi tababaro gudaha ah ay halkan ku sameeyaan. dadka qaar waxa ay bilaabeen in ay samaystaan cutubyo ay isku difaacayaan. intooda badanna waxa ay ka yimaadeen qabaa'ilada waaweyn.
waxa ay bilaabeen in ay weeraraan tuulooyinka oo ay gubaan guryaha sababtoo ah waxa ay aaminsan yihiin in dadka halkaas degan ay xiriir la leeyihiin kooxaha hubaysan xitaa iyagoon caddayn u hayn sida aad ku aragtid halkan dadku si degdeg ah ayay u baxsadeen iyagoo wax walba ka tegay boqolaal caruur ah ayaa iskuullada iminka xero ahaan ugu nool waalidiin badanna weli aad ayay uga baqayaan in ay guryahooda ku laabtaan iyagoo ka cabsanaya weeraro cusub وهاجاك haddii aan eegno korontada iyo Afrikana waxaanu eegi doonaa siyaabaha kala duwan ee tamar dhaxalgal ah looga dhalin karo qaaradda Afrika waxaan warbixintan ku saabsan tamarta inoo haya Maxamed Aadan Saalimiin in la ugaarsado wiisha madow ee naadirka ah ma ahayn mid fudud intaa ugama dhowaan kartid wiisha madow aragoodu ma wanaagsana laakiin waxay leeyihiin maqal fiican waa mid wanaagsan gaariga korontada ku shaqeeya ayaa awood u leh inuu ku socdo safaana iyadoon la maqal laakiin in la hormariyo fursadaha la yaabka leh ee duurjoogta waxaa bilaabay shirkadda Swedishka ah taas oo goobo badan ka samaysatay xarumo dalxiiska duurjoogtu halka ugu wanaagsan ee suuqa laga soo galo ayay ahayd dalxiisayaashuna waxa ay rabeen inay hawshu sideeda u socoto caalamka oo dhan waxaa yaala ilaa 1.1 bilyan oo gaari sidaas daraadeed maxaanu gawaarida oo dhan ugu bedeli laanahay inay noqdaan kuwa koronto ku shaqeeya waa fududahay mar 2 iyo 3 laakiin kuwaasi waa qiimo aad u weyn in loo bedelo gaadiidka mataatuuga ee minibaska ee koronto ahaan inuu ku shaqeeyo waxaana ay taasi yeelanaysaa saameyn badan waxaana haatan jira baahi loo qabo koronto dheeri ah in la helo laakiin tiro badan oo Kenyaan ama haystaan koronto kayda si ay ugu bedelaan in ay wax yar ay ku xalliyaan lii waxa ay bixisaa $1 maalintiiba hanaankeeda soolarka ee haatan waxaana ay dab u heli kartaa telefoonkeeda tooshkeeda iyo in ay daawato TV-ga in nal ay haysato habeenkii waxa ay Samuel uga dhigan tahay inuu shaqadii iskuulka uu samayn karo si aad u weyn Ethiopia waxa ay dhisaysaa biyo xireen korontada laga dhaliyo ee guud ahaan webiga Blue Nile biyaha webiga Congo waxa uu koronto siin karaa Afrika oo dhan mustaqbalka Afrika dhalinta xooga korontadu waxa uu yahay mid isku dhex jira marka waxaad arki doontaa dad isticmaalaya habkan electriga ay ku xidhan iyaguna webiyada laga dhalanayo biyaha iyo dhaamamka laakiinse waxaynu arkaynaa in maalgelinta Shiinuhu ay tahay mid ay rabaan in Afrika ku boobaan waxaa jira qorshe balaayiin $1 ah oo lagu ballaarinayo mashruuca Inga laakiin inay 1 mayl u jirto warshad walba waxa ay u baahanaysaa in la dhiso fiilooyinka korontada sidoo kale waag balminkan haddii aan eegno wararka ciyaaraha ee caawa horyaalka Yurub Manchester City waxay si howl yar ugu gudubtay 8 u dambaysa markii ay xalay ku tumatay kooxda Schalke ee Jarmalka oo ay 7-0 kaga badisay garoonka Etihad ciyaar kalena Cristiano Ronaldo ayaa 3 gool u dhaliyay Juventus oo lugtii hore 2 gool ay ku lahayd Atletico Madrid ciyaaraha dhacaya caawana labada kooxood ee wada ciyaaraya horyaalka Yurub lugtii hore waxba iska ma dhalin Barcelona waxay la ciyaaraysaa Lyon laakiin Liverpool waxa ay ku beegan tahay Bayern Munich waxa ay rajaynaysaa in ay noqoto kooxda afraad ee horyaalka England ee u gudubta qaybaha dambe gool ama barbardhac haday helaan waxa ay ku beeri doonaan Manchester City Manchester United iyo Tottenham 8 u dambaysa Tiger Woods ayaa sheegay in uu ka qayb gali doono ciyaarta golfta ee Augusta Masters bisha April inkasta uu horay ciyaarihii ugu dambeeyay ka haray toddobaadkan qoorta oo xanuunaysay awgeed Woods wax kale uu sheegay in xanuunkani uu ku lug leeyahay qalin dhabarka laga sameeyay April 2017 uuna yahay mid uu wili la tacaalayo ciyaaraha tenniskana Rafael Nadal ayaa la ciyaari doona Serbia Filip Krajinovic iyadoo Roger Federerna uu wajihi doono Cal Edmund wareegii afraad ee koobka Indian Wells maanta xidiga lambarka koobaad ku jira tenniska Novak Djokovic ayaa ka maqnaan doona tartanka ninkan Serbianka oo haatan haysta 3 kamida 4 tartan ugu weyn uu maqnaan doona
shirkadda caanaha ee Arla Foods ayaa sheegtay in marka la gaaro sanadka 2050 in wax soo saarka caanaha iyo daabulistoodaba aanay ka dhalan doonin wax karboon ama qiiq ah. shirkaddan Arla Foods iyo shirkadaha kale ee soo saara hilibka ayaa culays lagu saaray in ay yareeyaan qaaca ka baxa warshadahooda. Qaali Baruud ayaa eegaya. si ay caano u soo saaraan warshadaha caanuhu waxay sii daayaan wasakh kululaysa hawada waxayna qayb ka yihiin isbeddelka cimilada. dheefshiidka lo'du waxa uu sii daayaa methane waa neef halis ah. waxaa sidoo kale jira kaarban ka dhasha warshadaynta iyo gaadiidka suuq geeya caanaha. laakiin hadda waxaa muuqata saansaan wax lagaga qabanaya dhibaatadan. dadka u ololeeya deegaanka ayaa muddo dheer dhaleecaynaya raadka warshadaha caanuhu ay ku leeyihiin kordhinta isbeddelka cimilada. laakiin hadda shirkadda caanaha ee ugu weyn Yurub ayaa isxilqaamaysa. waa hawl laga soo bilaabayo xerada lo'da. Kerry waxay la shaqaynaysaa Arla si loo dheelitiro qaaca kaarbanka sannadka 2050. waxay dib u casriyeysay beerta ay lo'da ku dhaqato iyadoo isticmaalaysa teknooloji hawada u roon. qaybta lo'da lagu lisaa tamar badan uma baahna. sac waliba sannadkii mar ayuu dhalaa. waa bartilmaameed himilo oo weyn laakiin haddii qof kastaa ka qayb galo UK waxa ku nool 2,000 oo beeraley ah oo ka tirsan Arla. sidaa darteed haddii qof kastaa wax yar sameeyo wax walba way isbedelayaan. dadka ka caagan dheefta xoolaha ayaa ku doodaya in ka ganacsiga lo'du marnaba cimilada saaxiib la ahayn. si kastaba ha ahaatee saynisyahanaduna waxay sheegayaan inay horumar muhiima tahay mar haddiiba ay shirkadaha waaweyn ee caanuhu xisaabta ku darsadeen qiiqa hawada wasakheeya. wagaag bandhiga ugu weyn Yurub ee gaadiidka ayaa waxaa la keenay gawaari isku dhafan oo ay qaar aad u dheereeyaan kuwa kalena ay layaab badan yihiin. Cabdi Siraad ayaa inoo haya. ka waran gaadhigan kala jiidan een cidi wadin ee kuwa ayaha dambe ah waa kan Renault EZ oo kaba dambaysi. wuxuu ka mid yahay gawaadhida cajaa'ibka ee sanadkan la keenay macradka gaadiidka ee Geneva. gawaadhida korontada een cidi wadin ayaa u badnaa kuwa la keenay. gaadhigan Citroen AMI Co waxaa lagu tilmaamay mid magaalooyinka u fiican oo xawliga ugu badan ku socon kara uu yahay 45 kilomitir saacadii. wadamada qaarkood waxaad ku wadan kartaa adigoon liisan haysan. gaadhiga madow ee Bugatti waxa uu ahaa ka ugu qaalisan oo lagu iibsanayo $12 milyan oo dollar cashuurta ka hor. xawligu ku socon kara waxa uu yahay 420 kilomitir saacadii. sharikad Holland ayaa waxay keentay gaadhi ay aaminsan yihiin inuu duuli karo. gaadhigan 3 taayir leh ee ay keentay Estonia waxay rajeynayaan inuu qabsado suuqa Mareykanka. wagaag ugu dambeyntiina wadooyinka mid ka mid ah magaalooyinka yaryar ee dalka Greega ayaa daboolmay kadib markii ay hareerayeen daruuro ka samaysmay bur midab leh iyadoo la xusayo caado dhaqameed sanadle ah oo loogu yeero dagaalka burka. dadku waxa ay xirnaayeen muraayado iyo dhar isku joog ah waxaanay siteen boqolaal bacood oo uu bur ka buuxo oo la isla dhacay. guryaha waxaa lagu daboolay baco lagu ilaalinayo wasakhda. inta ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina. intaan mar kale dib u kulmi doonana waxaan idinka tegaynaa sida iyo nabadgelyo.